iyadoo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose uu ka duulayo sidii dadka ku dhaqan Awdheegle ay u heli lahaayeen saldhig booliis oo u shaqeeya bulshada iyo xarunta hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa horumarinta caafimaadka ayuu maamulka Shabeellaha Hoose ka hirgeliyay Awdheegle MCH iyo saldhig booliis. ciidanka booliiska Awdheegle ku sugan ayaa hadda kadib si buuxda ugu shaqeynaya saldhigga. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaana si rasmi ah xariga ugu jaray iyadoo uu weheliyo taliyaha booliiska Koonfur Galbeed Soomaaliya. gudoomiyaha degmada Awdheegle iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan magaaladaas ayaa sheegay in xarumahan xariga laga jaray ee bulshada ka faa'iideysan doonaan. maanta waxaa farxad weyn ii ah saldhigga booliiska degmada Awdheegle iyo MCH-ka degmada Awdheegle in maanta xariga aan ka jarno waa farxad weyn ii ah aniga iyo maamulkayga iyo shacabka degmada Awdheegleba waxa farxad noo ah maanta mashaariicda inta laga hirgeliyay maamulkii oo u dhabar adeegay in mashaariicdan horumarineed degmada Awdheegle laga fuliyo waa ku mahadsan yahay. waxaan rabaa inaan iraahdo marka koobaad gudoomiye aad iyo aad u mahadsan tahay adiga iyo inta kale isku hawshay sidii mashaariicdan maanta xariga laga jarayo looga hirgelin lahaa degmada Awdheegle. degmada Awdheegle waxay xarun u ahayd muddo dheer run ahaantii nimankii cadawga halkan iyada laga xoreeyay kuwaas oo shacabka Soomaaliyeed degmada tan ku sugnaa run ahaantii dhibaato iyo hagardaamo badan ku hayay. anagoo taas iyada ka dhiidhinayna ayaa run ahaantii ay qasab noqotay in adeegyadii bulshada shacabka ku nool degmada Awdheegle ay u baahanayeen dib loo hirgeliyo. taliyaha booliiska Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Ibraahim Shaamow ayaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ugu mahadceliyay hirgelinta saldhigga isagoo sheegay in ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay si rasmi ah ugu howlgalayaan imika wixii ka dambeeya. ciidanka booliiska waa jooga taliyada saldhigga ay taagan laakiin tirada la rabay ma aha ma gaarsin. waxaan ballan qaadaynaa maalmaha ama asbuucyadan gudahooda ciidan booliis ah lagu diirsan inaan keeno. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa sheegay in fulinta mashaariicdan la geliyay waqti iyo dhaqaale loona baahan yahay in loogu adeego bulshada. waxaan aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay in markii ugu horeysay halkaan aan dhagax dhigaynay magaaladan ay ahayd magaalo runtii geedo waaweyn ay ku yaalaan oo bilicda maanta ka muuqataan aan lahayn. saldhiggan booliiska ah waa meelaha ay runtii adeega bulshada muhiim gaar ah u leh. waa meeshii ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay ugu adeegi lahaayeen shacabka ku nool reer Awdheegle. waxaa loo dhisay runtii ciidamadu inay amniga shacabka ay ku sugaan adeeg gaar ah ayay qabtaan booliiska oo runtii oo ka duwan kan xoogga dalka Soomaaliyeed kaasoo ah in dacwadaha bulshada dhexdeeda ah meel ay geystaan ay helaan maxkamadda ka hor. maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa deegaanada iyo degmooyinka laga saaray maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab u diyaariyay in si degdeg ah looga dhiso xarumaha saldhigga booliiska MCH xarun degmo iskuul iyo hirgelinta leerarka ku shaqeeya cadceedda iyadoo taa uu maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ku sifeeyay in nidaamka dawladeed loo daadejinayo dadka ku dhaqan deegaanada laga saaray Al-Shabaab.